السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي maanta waxaan joognaa Afia Hapol sauna and steam ku taala xaafadan Islii gaar ahaan Nomad agagaaraheeda macallin Fartuuni aniga meeshaan maanta lagu casuumay walaasheen Firdowsa ayaa iskala meeshaan Firdowsa sida u wada yaqaanaan waa iskuulka Atlas ma taqaana gabadha aasaastay marka haye Fartuuni bal meeshaan maxaa lagu hayaa adiga laftirka saunada iyo waaga gashay bal ii waran ما شاء الله salaamina dhamaanteen yaantaan halkan adin ma kulmin ma sha Allah baar ismoogeen ani waas isku noqdana insha Allah taala sheekooyinkana waa loo xiiso aad baan isoo weydiiyay haye ma sha Allah waqtiga isla xadidna insha Allah waa diyaar meeshan horta waa meel caafimaad oo qofka wixii loo yaqaan masaajka daliiga toobinka oo qofka uu maxay ahaato isku toobaa duruuftiisa caafimaad ama jirkiisa uu ku ilaashanayo xamaam maghribi Allah af carabi lagu dhahaa muslimiintana way lahaan jireen Andalus ku ooli jiray waa waqtiyada qabowga jiray meelaha qabowga ku badan yahay ya hadda maanta waan ku faraxsanahay in Nairobi ay yeelatay waxaan ku xasuusan karnaa walaashan Caasho Quraasho oo lahaan jirtay marka xamaam maghribi dadka u sharaxno ka daba geeyno waa meel la isku qandicinayo waxyeelada qol la isku qandiciyo وقفك ديدك iyo isaga saaraya maxay ahaato dhiiga qabowga fadhiyo massage way leedahay toobin way leedahay daliig way leedahay qofkii muruq iyo markaas uu haayo way leedahay stresska ka baabi'inayo waxay leedahay koranto la talin iyo Islamic psychology qofkii markaas buuq isku buuqsan ama duruuf haysato macallin Firdowso waa macallimad qabiir oo maxay ahaato ayadana sidoo kale muddo dheer macallin iskoolka Atlas macallimad ka ahayd oo dhanka psychology-gana khibrad ka haysato marka qofkii gabadhii buuqsan ama musayir ku kacsan buugna way qortay oo waliba buug la dhahayo musayirka see loo maareeya hada shay marka gabadhii isku buuqsan oo lala aroosayna iyadana u furanta masha inay maado joog iska dejiso meesha sidoo kale caafimaadkaada inaad ku ilaashato oo cayilka faraha badan iyo hilibka aan loo baahnayn jirkaada ka ilaaliso anigu waa isticmaalaa waa gashay maalin waa galay dhowr jeer waa galay marka alxamdulillah oo isku qandiciyo maxaa aragtay markaa gashay ka dambe dhidid wasakh ka baxayso dhidid far badan ka baxaya hurdo fiican waa helaysaa waxaad dareemaysaa fudeed sidoo kale dhowr sano ka hor Mombasa iyo joog qoraxa aadi jiray iyo mara xamal laakiin hadda waxaan helay Nairobi gudaheeda inuu qofka maxay ahaato meel isku qandiciyo dhididka iska saaro gaar ahaan hadda xilligan aan joogno bisha 6aad 7 Nairobi aad bay u qabowdahay sax iyo bisha 9aad laga gaarayo marka qofka inuu isqandiciyo isdaliigo ismasaajo haddii muruq iyo xanuuno dhabarka ka hayana stoobto dad gabdho ku takhasuseen ay joogaan rag iyo dumar maalmuhuna way kala qaybsan yihiin maalin maxay ahaato ragga iska leh maalmaha ragga qaar iska leh maalmana waxa iska leh dumarka iska leh sidoo kale waxay idin hayaan saloon sidoo kale waxay idin hayaan pedicure qofkii u baahan meesha horta waa meel ma sha Allah sidoo kale xitaa waxaan jeclaystay saunagooda ma aha ma taqaana koronto iyo maaha qoryihi caadiga ah dabiiciga ah ayaa lagu shidaaya oo steamka camti kuleelka sidaas baad ku helaysaa marka dumarka iyo raggana waa ay leeyihiin marka insha Allah ta'ala duleyrada numberkan hoose ayaad kala soo xiriiraysaa booking ayaa samaysanaysaa ayaga ayaa ku sheegay maalinta ay imaanayso marka ku soo dhawaada ayaan idin leenahay Afia Hapol sauna and steam ee ku yaala xaafadan Islii gaar ahaan Nomad wixii faahfaahin hoosena halkan hoose kala xiriir ku haboon tahay hooyooyinka aabayaasha ayeeyooyinka xanuunka jilbaha loo sheegtaa qofka jilbaha laga haayo asagana aad bay ugu haboon tahay isbuuc kasta axad kasta gabdhaha iska leh maalmaha qaarna ragga iska leh marka waayeelada iyo aabayaasha ayeeyooyinka hala keeno inaan u furan sidoo kalena waxaan rabnaa inaan idin sheego lacagta xitaa ma badna ma rabo inaan idin sheego hadda laakiin lacagta aad ay u jaban tahay sababtoo meeshan waxay ugu tala gashay macallin gabdhaha daaciyaadka gabdhaha macallimaadka gabdhaha wadaadada inay meeshan ka faa'iideystaan khidmada ay ka qaadayso waa khidmad yar because meesha dad shaqaale ah joogo oo shaqada ku takhasusay gabdho Kenyaan ah joogo oo massage ka qaabilsan qaar toobin ka qaabilsan qaar daliig ka qaabilsan marka qofku waa meel caafimaadka ku ilaashanaysa xamaam maghribi ala yiraahdaa afka carabiga soo dhow lacagta aad ay u jaban tahay meelaha kale aadka u tirada badan marka tagta ma aha waa meel fiican aniga kullee massage kan galay aad iyo aad aan u jeclaystay ana meesha isku qandaxnaa
kulaylka lama arkin oo dhidid badan ay gashay macallin Fartuun marka waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada sidoo kale macallimadeena dee buugaasna way qortay insha Allah ta'ala macallin Fartuun hada psychology u baahan talo psychology talo hada u baahan tahay sidoo kale ku soo dhawaada meeshan waa all in one hadda waxaan dhex joognaa sawnadii halkan dabcan waa laba jaran jara camal waaye qaybtan hoose waxa way hadii lacala aad u baahan tahay kuleel iska normaal ah kuleel zaid ah u baahan tahay halkaana kureysa geedkan naga dambeeyo waa meeshii laga shidayo qoryahana banaanka ayaa looga soo daawo meeshan ku jirto marka ilaa 17 18 geedood oo caafimaad ahaan aad iyo aad u fiican qofka jirka inuu ka wahay macallin halkan sidoo kale labada jaran jara leedahay xagana saacad ay ku taalo qofku u fiirsanaya iyo temperature maxaa tadaarto 30 daqiiqo hadaarto 40 daqiiqo hadaarto 1 hawa aragto banaanka musqushiga oo ku qubaysanaysa oo leedahay biyo ka cabaysaa hadaarto ku noqonaysa ilaa qofku isku qandiciyo ma sha Allah waan alwaaxeeda waa dabiici koronto ma ahan ma sha Allah kuleel normal hadaarto qof intuu fariisana kuleel fuul oo rabo qof inuu dhidid badan ka baxraban kor u koraya halkaas saacadaasna uu fiirsanaya ma santa macallin hadda laftirkeeda waxaan dareemaa meesha waxaan taaganahay qabow badan ay jireen iska dhex fadhidaa meesha qandacira ka soo baxooy hadara hawsha bilaabanaysa moogaanin asxaabta insha Allah balanteena waa inoo halkan leedahay meesha masaajka oo isku dariiqay qolka kale kana ka soo baxay qolka kale masaajka aad galay mid kale waa islaamic wala kala asturan yahay rag iyo dumar kala maalmeen leeyihiin gabadhi soo galayso markay soo galayso qof arkaya ma jiro darkeeda meel qaar qol gaar dhiganaysa way isku qandicinaysa isku ku qoysanad kadib masaajkeeda dib ku darsato kadib ayada maxay tahay qaab ala xuduud shariica waa bas waa ma santahay macallin saddex gal ma jiro saddex yaacna ma jiro qof kale ku arkayana ma jiro qof wal waqtigiisu leeyahay mahadsanid macallin Fartuun adinkana asxaabtu waa mahadsantiin balanteena waa halkan lacagta aad ay u yartahay telefoon numberkan le soo wacda ogaan doono waxaan hubaa inaad meesha ka baaqanayn oo aad u bogi doonto oo dumar waa yeer kulli soo dhawaada insha Allah